بسم الله الرحمن الرحيم أن وحكبرانو ويدينتن what are preferred stocks أما preferred shares. preferred shares sidoo kale waxaa loo yaqaanaa magacyadan hortiina ka muuqda sida quasi equity shares, sidoo kalena hybrid security, sidoo kale preference stocks ama preferred shares. haddaan u soo laabanno in aan erey bixinno preferred stocks sida ka muuqata magaca saamigan preferred oo ah saami la door biday ama mudnaan la siiyey, waxaan ku qeexi karnaa waa saami caddaynaya lahaanshiyaha qayb ka tirsan shirkadda. haddaba waxa uu xaq u siinayaa milkiilaha saamigan in uu helo lacag markii la gaaro faa'iida qaybsiga dividend inta aanan la siinin wax faa'iido ah milkiilayaasha common shareska. saamigan waxa uu kulansaday calaamado ka tirsan common shares iyo bond, waana sababta loogu bixiyey magacyada quasi equity ama hybrid stocks. waayo haddii laga fiiriyo faa'iidada ama lacag bixinta sugan waxa ay ka siman yihiin bonka ama deynta. haddii la fiiriyo dhanka lahaanshiyaha shirkadda waxa ay ka wadaagaan common shareska. sidii aan horay u soo aragnay preferred shares waa saami si la mid ah common shares, balse waxa ay ku kala duwan yihiin marka ay imaato khasaaraha iyo faa'iida qaybsiga. haddaan ku horumarno khasaaraha, haddii shirkadda la beeciyo ama ay musallafto waxaa lacagtooda la hormarinayaa in la siiyo milkiilayaasha haysta preferred stocks. haddii ay wax ka soo haraan kadib ayay helayaan qolooyinka haysta common shareska. midda labaad, marka ay noqoto faa'iida bixinta waxa ay helayaan dividend sugan inta aanan la siinin milkiilayaasha haysta common stocks, balse ma helayaan wax codayn ah sida qolooyinka common stockska haysta. sidoo kale ma helayaan lacagta ka imaanaysa sare u kaca ra'sumaalka shirkadda. sidoo kalena ma saameynayso hoos u dhaca ra'sumaalka shirkadda lacalla haddii ay imaato. xog dheeraada oo ku saabsan erebixinada bond, common shares, retained earnings, dividend, board of directors, share and shareholders fadlan ka dhegeyso lifaaqyada hoose oo aan hadda ka hor kaga soo hadalnay. maadsanidiin waa inuu markale haddii rabbi idmo.